xaaskiisa marna in bili aadan kale shabakada jabin karo ay suurtagal waa in khadka ku xiran waa in haddii bidix iyo midig la maro halkaad xaaskaaga gaarsiisatay bidix iyo midig haddii la maro waa in adiga waxa tiri mooyaane wax kale aysan dhigaheeda ka gudbi karin waa in ku xiranta markaad nin raga tahay laakiin markaad mudayac tahay waa adan waxba ku kood garaysnayn dee cidi doonta soo galaysa albaabkaas kood kalena ku xiranaysa marka kood lagaaga xirtana dee adaa ku xiran waaya marka hore baa lagaa xirta marka inta halka soo fariistina tira xaaskayga waa laygu diray yaqiiqsi waan arkaan raganimo ma arko xataa qarso bulshada la soo horfariisana ama meelaha ka sheegin qarso waa sababta maxay tahay sababtoo ah libintaada soo cesho gal competition tartan gal أحمد جواهري وأكو سلام يا مدعو عقب خير الله كسي هل كان وحشة فيا ودي جدا وأكو سوق بنا يا هدي أد وقت هيسد إي سوقر كلية ها وين هي أنت كلي إي سوقر الله أكبرك وأنا كاقع السلام هذا الله أكبرك ولا خير الله كسي هي بهذا اللي شفتني يقول سلام سجار marka waxaan rabaa marka inaan ku laabto marka midda beerku waa go'aamiyaha jirkaaga wuxuuse si uu go'aaminin jirkaaga kama dhexdhici karaan walaa maskaxdaada walaa calooshaada toona go'aankaasa iskale sababta wax allaale waxay dhacaan calooshaada u baahantay isagaa isku dardara wax allaale wixii maskaxdaadu energy u baahan tahayna isaga dhiigga kusoo dara wax allaale waxa mulqaaga u baahan yahay wax kastoo halkaa ka dhacay isaga iskale badbaado isaga iskale sifayn isaga iskale nadaafad isaga iskale kelmadaan raba marka inaan hadda u tago waa kelmadda hadda aad doonaysaan inaad fahantaan kelmadda aan raba inaad dhuuxdaan anaa way xanuun badan tahay laakiin ka xishoon maayo mar kasta haddaad aragtid nin ragoo bilaan nadaafad ah oo aan nadaafadda guriga kaa caawinayn ama isagoo aan nadaafad badnayn beer xanuunkiisa buuxa ana saa ula socotaa ku celi doctore mar kasto oo aysan nadaafaddu kaalinta koowaad kugu jirin annadaafatu nisfu min aliimaan waa qayb iimaanka ka mid ah markastoo aysan nadaafaddu kugu jirin kaalinta koowaad beerkaad ka xanuunsantahay tag waddankii soomaaliya masaajidda gudaheedu waa nadiif haween baa nadiifiyey bannaanka raggaa la raba inay nadiifiyaan maadaama haweenku cabaradooda ilaashanayaan bannaanka markaad tagtid muxuu yahay doctore bal masaajidada yaan laisla gaaray qolka yaraan degnahay haddaan nayntiga nadaafadiisa aan ka shaqaynayo waa roonahay soo maaha mar allaale masaajidka gudihiisa haweeneedoo nadiifisa markii bannaanka looga baxo dhooqaa lugaha lala gelayaa hadhowta dhooqadii kabaheedi gurigii baa lala tegayaa markaasi kaa saaraysaa war naga bixi kabaha dhig adoo qof weyn ah ayaa lagu leeyahay war kabaa naga bixi waxay kuu sheegaysaa beer xanuunka intuu leeyahay way awoodi la'yihiin raggu intay isu yimaadaan inay dhahaan war bii'adeenaan quruxsanayna kaalaya sida ragga kale oo asaagiinaba bii'adooda u quruxsadeen soo midna arag waad aragteen haweeney caddaan ah weli oo jid xaaqaysa maya kiine ii oran karaya haweeney caddaan oo jid xaaqaysaan arag waa raggoon baa xaaqa rag baa xaaqda beerka ka caafimaad qabaan markaasaa bii'adooda waxay tahay qurux oo sababtay u xaqayaan maxay tahay ninku muxuu yahay waa saare oo muxuu saaraa carruur iyo haween come on oo maxay tahay sababta maxay tahay sababtaa bilicda caafimaadka isaga ayaa ka shaqeeyay hadhow gurigiisa muxuu kusoo celinayaa haweene caafimaad qabta ilmo yaro caafimaad qaba oo markuu haysto haweene caafimaad qaba ilmo yaro caafimaad qaba maxaa isaga u imaanaya maxaa u imaanaya isaga maxaa u imaanaya
labadiisii lugooda socodka badnaa in socodka laga joojiyo naso inuu gogasha ku nasto that's the life ilaahi subxaanahu watacaala xubnaha u abuuray laakiin gaalkii muxuu sameeyey kitaabka qur-aankaaba kuu dabamaray miyaa may abuurkii ilaahay buu kaaga hormara abuurkii ilaahay buu bartay kabacdina markuu abuurkii ilaahay bartay buu kitaabka qur-aanka u tegey markaasuu arkay nimco walba markaasuu so markay bannaanka xaaqayaan ma calaacashooda isticmaalaan iyo cagahooda maya maxay isticmaalaan akab bay isticmaalaya qalab maskax tactic technique qalab iyo qorsheyn xataa iyo xilliyada ku habboon so ninka soomaaliga marka ee waddanka ku nool maxaa nadaafadii ku adkeeyey beerku xanuun yahay beerku leeyahay doctor adigu waxaa sheegaysaa waddan dhan baad sheegaysaa sharbaadkiisa uraya sharbaadka waqaatiyan laga taagay horta sharbaadka ka hadal doctor meelaha markii xafladaha haweenaydiisu ku canaanaya maxay cagaa igu urayaan oo cagaha maanaa leh sharabaadka wax ka daran jirkiisa goortay ku agmarayaan elboy may markii xafladaha laiskugu yimaado iyo meelahan goobaha sharbaadka ura wallaahi bilaahi sharbaadka ura waana bilaasinki doctor taa ka hadal eerkayga waa dambeeyey goadna waxaad leedahay waddan dhan qashinka ka ururiya iyo caruuriin annagii baaba sharbaadkayga uraya doctore aan isbaranno sheekh cabdiqaadir marka hore aan isbaranno niyo marka aan xaafadeena gaarsiinayo ciyaalkeena doctor annagaaba iyo wareersana meelaan wada nin kasta meel buu ka raadinaya xalkii laakiin maayo waxaa ii soo baxday guriga marka la nadiifinayo qolalka inay haweenku leedahay fadhiga iyo musqusha iyo bannaankana ninka oo leeyahay so qorcaaw buugteydii baad mudaharaadaysa ma beerkan ka sheekeeyey doctor buugti baad qaadatay miya buugtii baad bad bay gashay bad annaga naga dhex hadashay sharbaadkayga uraya markaasaad ka sheekeynaysaa beer ilaahay baan kugu dhaarshay bal u fiirso markii masaajid weyn muxaadaro laga bixinayo oo muxaadaradaas laga hadlayo baabu nadaafa oo si fiican loo sharxay la dhegeysanayo oo maxaaladii markii laga baxo la aqimo la tukado oo salaadii markii laga baxo kabacdeen la sunnaysto la yaaco oo kabiil lala soo baxo dhooqa la dhex dhigayo ka warrama ilaahay bay ku dhashay ka warrama ruuxan aynu ku noolnahay nolol maaha inay khariban tahay laakiin anugu doctor waxaa aaminsanayo qofka ninkani wuxuu dareemi lahaa tusaalahaan markii haddeer soomaali waxay ba ku daraya waxaa laga yaabaa 400 iyo masaada rag ah inay masaajidka ku dhex jiraan xataa hal mid oo fikirkeena kuma jiro oranaya warta haddii la yiri annadaafatu nisfu min al-iimaan dee masaajidka banaankiisa wax yaala waa aragtaane tala aan u keenno aan iska nadiifino ma jiro beer xanuun baa lahaas iyaga kan tafsiirka u akhriyay ama xadarad jeediyey iyo inta dhegeysanaysaa beer xanuun bay qabaan garantiyeed sababtu maxay tahay beerku waa kan go-aanka hela xubintu waa xubin go-aan waa kan isla markiiba ow nadaafatu nislimaan waa kan markiiba yidhaahda talaan hayaa anigu haddii nadaafaddii wax wanaagsan tahay nisfu min iimaan la yidhi dee bannaanka aan nadiifino se u nadiifin karnaa kaas baan heli karnaa mashiinka xagga ka heli karnaa xooggeena soomaalika waa kiwii tala keena marka nadaafaddii lagu qorxiyo laakiin haddaad aragtaan inta baabkii laga hadlay kabacdina kabii bannaanka loola aadi lahaa dhooqa la dhex dhigay
iyo biyo uraya aamina waxay tiri inaaf is inaaf bal aamina u dhiibaya aamina aamina waxbay soo xasuusta aamina maxaad aragta ma ay rabta inaad hadasho way doonaysa inaad hadasho wax badanoo taabatay inaa wax dhaho ma rabin laakiin alxamdulilah waa ku faraxsanahayo waa ku faraxsanahay aad admit garayseeno aad taa ka wada hashar wallaahi marna waa ooyaa aamina sorry haddaan nolosha guriga ku xasuusiyey maya taa anigi iyo walaalkay iyo wiilkay iyo cidoo dhan aan laiskuga balanbalay taa horta absolutely sharabaadada iyo guriga la hagaajinayo taas bisinka anigii walaalkay ku kala go'nay wax kale iska daaya intuu banaanka imaaday oo aniga dhulka xaaqaa intuu iila soo istaagay dhukub meesha ii istaagay aan ku dhahay maxaa kuugu dhaca sii taagnaa aan ku yidhi ballan waxaa igu haddaanan iskoobaha intaan usha ka soo siibtay aan ku yidhi waa ku sasaarayaa ma intaa yar baa intaa u dhigaysaa uu yidhi marka alxamdulilah finally haddaaba wax ka hadlaya la arka caawa ya finally bes baa caawa idin duceeyey intaaba haddaaba walaalkaa raalli geli waxaad ku tiraa walaalo sorry inaad qof xanuunsan ahayn ma ogeyn de aniga intaasoo sano qurbo jooga asigoo caano geel kasoo dhergiyo markaas un wadanka imaaday keenay anigio intaasoo sano qurbo ilmo ku dhalay ku rafaaday haddaba weliba wax u sheegay waaba iyasay habe ha maya hadda raalli geli dee waxaa ku tiraa ma raalli gelinayo waaba xanaaqsanahayba anigaaba xanaaqsanba walaalka caafimaadkiisana la dadaal so waxaan siinaya haddeertaan walaasha magaceeda ma akhri karo walaal magacaaga muxuu yahay duca qabto soo dhow muud baa ku jirtaa ayboy madaa muudka saaray ma saaraa anaa ka saaray hadal leh maxaa ugu qoran no buuq walaashay magaceeda caadigaa meel la baxdo khayr allah siiya dembigada la dhaafo no buuq salaamu calaykum waa ka xishoodsiisiyana u malaynayaa marka iska daaya way ka bixi weyday way ka soo baxaysa insha allah no buuq duca qabto soo dhowo ka bixi weyday miyay soo qorta maya mut marka shaakirow xubintan beerku yani xubin la dhayalsan kara ma waa general waa project manager waa general yani waa yani efri nolosha go-aankeeda meel kastuu kaa galo haddiisan kuu hagaagsanen waad kula qaloocanaysaa asalaamu calaykum doctore calaykum asalaam waraxmat magacayga xaawo waaye xaawo ku qora bilaahi calayk allah ku barkay xagee ku noosha soomaaliya saacaddan oo soo jeedaa haa haye maxaa ku dhibaya waa soo kacay haddaay 7 sac maray ahayd haye maxaa ku dhibaya maxaan kaa caawiyaa wadna xanuun ay ahaayeen wadnaha ku xanuunaya haa muddo intee leeg muddo badan adi muddo badan ma ogtahay in dhiigga ku culusay dhiig la-aan waaba qabaaba laakiin inuu culusay waa ogta ma ogi cudno kuma sheeg ayron la-aanaa tahay iyo dhiig la-aanaa xabisay ma isticmaashaa saliid caddayda waa iska joojiyey 3 bilood hadda waa iska joojisa haa ma cuntaa hilibka hilib saas muu cuno okay kalluunka ma cuntaa maya xaggee soomaaliya kaga noosha
muqdisho so cunista kalluunka waa inaad bilowdaa fadlan iska ilaali hana dubin waa inaad karisaa hana shiilin hana dubin baro cunista kalluunka ma isticmaashaa basbaaska basbaaska hadda ayaamahan ma cunin laakiin waa jeclaa jir waagi hore good khudaarta ma isticmaashaa salarka ma isticmaashaa waa isticmaalaa laakiin marka qaar ay ku gambiyeysaa maxaad ka helaysaa saliid waddanka macsaro maxaa kale macsaro ma aqaano kuwa kale ani oo mateedka ma kaa xiran yahay hadda caadiya ah wax waa cuni karaa laakiin marka qaar oo iga xirmaa waxaan kuu tilmaamayaa saad dhiiggaa kor u qaadi lahayd una khafifin lahayd haye so waxaad samaynaysaa maalin ilaahay keeno markaad qadaysid kadib ma garan karaysaad u awoodi karaysa dhaqaale haye soomaaliya waxa weeye waxa idinka cakiraya waa dhaqaalihii maalin ilaahay keeno markaad qadaysid qadadaada waxaad ka hormarisaa xeero qudaar ah oo isku jarjaratay ka hormari ka bacdina qadee wax saas u badan maaha markaad qadaysid kadib saacad kadib ayaad waxaad shiidanaysaa ama miiranaysaa xabad baytaraanfa oo aad ku dartay xabad cambaa oo aad ku dartay xabad lindhanaana sax haddaad awoodi karaysa waad joogtaynaysa haddaad awoodi karayna maaldhaaf cabbi aroortii markaad soo toostid waxaad samaynaysaa oo aadka u muhiimsan biyo diiran iyo xabad moos aad cuntid kadibna waxaad ka dabamarinaysaa 5 xabo timirta lafaha leh ah timirta qallalan lafta leh midda jilicsan iska ilaali lafta leh oo intaad meeshii lafta ka saartay meeshaad lafta ka saartay aad lindhanaan ku toojisay doctor waa isticmaalaa taas ayadani waa inaad samaysaa waa inaad 5 xabo maalin walba ka cuntaa adaa kaa faa'iida taas kadib quraaca marka oo xabadda mooska ah biyaha diiran waa inaad ku cuntaa markaad biyaha gabatid xabadda mooskaana ku gooso isku burburi markaa saas samee nidaamka mar habeenkiina cun digirta biyaha leh waa cunaa digirta waa cunaa oo digirta biyo la dhig intaadan karin ka hor dhowr saacadood 5-6 saacadood inta jeceshahay inta doonto noqoto waxaasoo dhan adaa kaa faa'iida hadda midda habeen dambe karin rabo biyaha la dhigi rabaa hadir absolutely fariid saasaad u wadaysaa saa marka u wadid dhowr asbuuc kadib wax ka dambe natiijada waa haysataa markaad natiijada heshidna joojin maysid waad wadaysaa ilaa jirkaagu bannaanka iskaga tuuro waxa ku haya marka bannaanka iskaga tuuro si caadi u noolaan karaysa marka laakiin aad isku day inaad godkii ku laabatid doctor waxaa marmarka qaar lacagtii aa weehaysaa ma ogtaa u sheeg hooyo waa caafimaadkay ku dhahoy waxba isma dhaano qof dad guri iska joogo waad kuu sheegay duruufuhu hadday waxna wayaan taasaa dhib ah taas waa arrin adag intaas leena haysata maana wax walba waa kaa faa'iida adi wax walbaa samaysa lahaaye good isku day hadba adigu sidaad u awoodi karaysid waxaad samayn karaysaa hadda ka hor miyay la soo xiriirta maya hadda ay uga horeysa maya waa ku barta soonkii adi ilaa hadirtaan waa ku dhegeystaa laakiin weli si barayfada miyay la soo xiriirta hadda ka hor luuqa fariiman kugu soo qor laakiin ma arkina umaleeyaa okay fariin kale isoo qor insha allah nad sandhiyo dhahaa ma dirmaysa camal hadda ku qaabilaya dhimale hadda kuu diraya isoo qor waxay igu dhaheen wadna xanuunka waxay igu dhaheen quunka lagaa bixiyaa wadna xanuunka waxa kuu keenaya iyo qandhada jirka kale kaa hayso quunka waaye may waxaa samayna waxaas marna hayee
doctor Mhm. raalli haw adaa kuwato walaashan intee inay qudaartaas cuntoo kale ee u baahan tahay meeqa bil maya cabdiqaadirow walaal falowna soo dheeriba innaga 3 nin baynu nahay innaga hoos kala hadlayna gabadha dhimale walaal waxaa samaysaa ceelboy shaakir cabdiqaadir falow soo dheh doktoorkuna waa kula ballamay dhimale arrintaada waa dhammaynayna insha allah Way hadday muqdisho joogto oo waxaad u dirtaan ay si toos ugu adeeganayso kama badna 250 waxay u baahan tahay maasha allah maya hoos walaal hoos falowna soo dheh 3deeda hoos baana kala hadlaynaa dhimale waxaa rabaa thank you walaal annaguna ku soo celinaynaa waxaa rabaa doctor inaan ka baxo waxaa jirtay rabadaantii habeenada ka mid a waxaa in eelbay xusuustay in kale iyo walaalaha meesha jooga waxaa inoo soo gashay gabar soomaaliya joogta xaamile ahayd waxay kugu tiri doctor miisaankayga wuxuu marayaa 160 kiilo ma xusuustaa doctor ها rabadaantii bay ahayd kadibna si fiican gabadhii واحد استعمل كي قول كيلا مدح قرني adigii hagay oo tilmaamay dan walaashii markii falowga waa ka daba tegey alxamdulilah waa sahalnay way yara xanuunsatay waaga walac iyo waxbay iska ahayd maamo iska soomaaliya joogtan waad iska dareemaysaa nasiib wanaag kamaan harin ilaahay wuxuu waafajiyey si kastaa noqoto muddo kadib in maaragtay waqti badan iyo time badan aan gelinay ilaahayna waa waafajiyey cunada marka doctor waxaa jira qofka hadda soomaaliya jooga automatically hadduu markaba uu bilaabo qudaarta jirkiisiibaa ooman markasta waxaa waajiba inuu multivitaminaad helo laakiin markastuu qudaarta iska qaato jirkiisa qalanaya waxba ma tarayso dan in aan u helnay fitaminaadkii markuu fitaminaadkii ay qaadatay kadibna de weerarkii iyo daalkii badnaa iyo xoogaa ay soo fahantay kole alxamdulilah caawa fariin bay qolka soo gelisay galabta ii soo dirtay qoftii oo 2 sawir kala ah oo miisaankeedii dee uu dhacay 40 kiilo oo 120 bay hadda maraysaa wayna isbedeshay macnihii awal miisaankeedii kor joogay markii intaa ay qaadanaysay qudaartii waxay noqotay way lugeysay kalluunkii cuntaa saliid cadday waxayna ku guulaysatay inay bariis iyo baasta iyo sonkor iyo saliid walaal caawina sidaas hadda waxaan u rajaynaynaa walaasheen iyaduna next time inay soo noqoto gruupkayga ka mid noqoto aan halkaas insha allah khayr waa ka baxay hadalka waxaa rabaa elboy gabadha ahlaam bal su-aasha ay u qoraysa ku caawiya anna waa ka yara dhacaya waa infasaxaya insha allah khayr aniga laftigii shaakir oo ka dhammayn maayo 3 daqiiqo wuxuu ka ka baxaya so shaakir allah ku barakay gabadha walaasheen ugu salaan maasha allah aad baan ugu faraxsanahay dadaalka iyo caafimaadka wado qofku isagu hadduu mas-uuliyadda caafimaadkiisa gacmihiisa ku haysto la wareego u tashto go'aan gaaro war garantii baa idin siinayaa jirkiinu idinku saaxiib idin leeyahay idinka heli maayo haddaad u heylisaan waa kii kuu heliya intaa keliya haddaad fahamtaan is amazing intaa keliya haddaad fahamtaan jirkiinu cid kalama baahna idinku idin baahaya haddaad idinku caawisaa isna ku caawin haddaad caawin weydidna asna kuma caawin karo so haddaas caawin weydana labadiina waa idin taala so hadda ka hor ayaan haweeney cadaan ah oo kansar laga helay ayaa dhakhtarku wuxuu u diray meelaha physiologiga ah yani psychiatriga u diray psychiatriga markuu u diray psychiatriga wuu la soo hadlay kadibna waxay soo laabatay iyadoo dismoraal ah iyadoon aad u faraxsanay murugaysan diiqad ka muuqato daalan bay soo laabatay dhakhtarkii ku soo laabatay laftiisii base dhakhtarkii uu noo yeeray wuxuu yidhi haweeneydan
dhibkaasaa haya waan ka caawinayaa marka idinkuna ila caawiya taasuu dhakhtarkeeda bogtay markaas waxaan ku dirahayay haweeneyda cabsi saa'ida haystay shoog yani kaga dhacay markii loo sheegay ay tiri ayay xoogaa tush baa ku furmay meel halisana wuu kaga dhaca marka maalin baa jirta marka haweeneydaas aan la hadlay subxaan allah ilaa ibn ku dhashay halkan fiisha markaasa waxaan ku iri markaad qofka si psychology ula hadlaysidna hadalkaagu uu ka duwan yahay sida normaalka caadiga ah oo idinku ma garan kara inaad u tagtay dhakhaatiirta psychologyga marka haweeneydu waxaan ku iri ka soo qaad haddii aad burada laga helay wallahi saasaan ku iri waa xasuustaa waxaan ku iri ka soo qaad haddii burada laga helay aad agreement la gashid soo aragtaa waan ku iri markaas waxay ku tiri v how sidee markaas waxaan ku iri haddii aad la hadashid burada kugu taalo oo aad tiraahdo buroy haddii aad keligaa inaad noolaatid aad rabtid adna waad dhiman anna waan dhiman midkeenna hari maayo adna hari maysa anna hari maayo ka waran buroy haddii aniga adigu aan wada shaqayno wada hadalno waxaa ula jeeda anu markaas haweeneydu jirkeeda inay la hadasho aan ula jeeda aysan meel kale la hadlin markaas waxay ku tiri agreement ma lala geli karaa horta sida ahaanba xubin jirkaaga ka mid a kaas waxaan ku yes waxaa ula jeeda marka inama acmaalu binniyaat baan cuskanay kaas waxaan ku yes haa hadda agreement ka gal baan ku yiri burada kugu taal erayaan u qoray markaa waxaan ku yiri saa u diyaari waa u maalinki marka meditationka marka ilaad marka waxaan ku yiri akhri erayadii dheh bura yahay aniga oo ah saas doonaya inaan saas agreement saas u akhriyaysaa mugti mar allah markay dhawaysatay waxaan ku yiri iyaduna agreementgeeda waa gudan adiguna agreementgeeda inaad gudataa haddii adigu aad gudan weyda iyaduna gudan mayso cuntooyinkii baan siiya marka anti kansarka ahaa waxaan ku yiri cuntooyinkan diyaarso furadaada agreementgeed la gashay ilaali haweeneydii kood baa ku xirmay waxay istiro ballan baad la gashay hee uga bixin cuntooyinkii bay daldasha furadii way yaraatay markaasaan maalinka dambe markaas waxaan ku yiri hay saddex waxaan dareemayaa inay buradaydi yaraanayso markaas wata agreementiga kula gashay wey haddaad adigu aad agreementiga jebin ayaduna jebin mayso ha jebin adigu se way daldasha dhakhtarkeedii u tagtay kaas waxaa lagu yiri kansarkaa ma aragno maxaad samaysa هذا اليوم ما أنت أنشوجنو هوين إذا شركة صاحب بلا تا أجريمنت يوين كوتشي تولي بالكور هوين إذا سوى على يوتري اسمه عطان وحى عنوه أجريمنت يوم كبحيا ولا سوى حقيري كبح ميسين حتى إياه وشيكتي فقس على قولي تكون علامة وفورمات جراي جزاك الله خير شركة iyo ayada ayaan cilaaqaad dhex dhiga wada hadal psychological method ayaan u adeegsaday hadda heer waxay joogtaa haweeneydaas markii nabar yar ka soo baxo inay tiraahdo jirow nabarkan aad iga soo saartay way macnayn kartaa macnaheedu noqonaya
وإنا كنا أضو سورية أحبتها كبا قولي سلسة إن آمن والله نوبو والله أيبل والله شاكر والله عبد القادر والله أنت إنك لا إله إلا إن شاء الله وحن ولا هلينا habeen dambe haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ku darayaa keliyihii iyo mindhicirada waxaana ka dhigayaa intaa waxa ka dambeeyana waxaan ka dhigayaa jawaabo ina in soo qabto jawaabtaan macnaha jawaabtaan waxaan ka wadaa idin jawaabo su-aashii jawaabta idin jawaabo thank you doctor